السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذن سلامي ميل كستا جوجتان كسو دوادا جانل كينا سومالي شيف maanta waxaan rabaa inaan kariyo alaabtana ujeedaan waa alaab yar oo simple ah maasha Allah cheese kama maqna cabbage chicken waa alaab iswadata oo aad cashada ugu wanaagsan haddana waxaan rabaa inaa ila aragtaan saa u kariyay iyo waxyaabaha ka koobnayd daawasho wacan baanka waxaan ku shubay wax yar oo saliid ah marba saliid inaan ka badiyo waxaan ku darayaa basal aan soo jarjaray oo aan soo yareeyay basashaas ayaan wax yar ku shiilayaa saliida marrabi inay wax badan brown iga noqoto aad uma guduudinay waa kaasa stage kaas ay maraysaa waxaan ku darayaa waa chicken boneless oo aan soo yareeyay soo jarjaray chickenka laf la'aanta ah intaan ayaan haddana mar kale isku shiilayaa marrabi inay zaid iga guduutaan ama iga gubtaan dabku waa ii qiyaasan yahay waa kana chickenkii basashii maasha Allah si fiican ay isku dhex galeen waxaan ku darayaa hal qaado yar oo ah parsley waxaan ku darayaa hal qaado oo yar ayadana oregano waxaan kaloo ku daraa hal qaado yar oo huruud ah rosemary hal qaado cusbo hal qaado spices ka jeceshaada isticmaali kartaa aniga intaan ayaan ka helan ku darsaday spices adiga aad jecesha oo markaas ku dhow oo gurigaaga ku yaala ayaa ku darsan kartaa laazim ma ahan intaan ku daray inaad ku dartid wixii markaas ku fudud ku dar halkan waxa iigu jira waxa waaye karooto oo aan soo xoqay si waaweyn ayaan u soo xoqay qaybta waaweyn ayaan grater-ga aan isticmaalay halkan waxa iigu jira laba nooc oo ah barbarooni kan waa greenka kana waa jaalihi nooca rabtid ayaa isticmaali kartaa barbarooniga hal nooc aad rabtid inta waxa iigu jira kabsar caleen waaye ayadana aan soo dhaqday soo jarjartay waxa kaloon haystaa halkan cabbage waaye cabbage-kan kan cad ma ahan waa cabbage-ka kale salad ahaan waad ka samaysan kartaa waad karsan kartaa anything haddana waxaan isku walaaqayaa raas fiican isku dhexgeliyo chickenkii qudaartii everything haduu ilaahay idmo waa kana waan isku soo walaaqay waa isku kay soo dhexgaleen spiceski cusbadii wax walba uu wataa very colorful qurux waad u jeedaan wax ka maqan malahan meeshan qudaar nooca rabtidna adiga waad isticmaali kartaa peas anything qudaartii waa inoo diyaar haddana waxaan diyaarinaynaa si aan guda galaynaa sidii aan ovenka u gelin lahayn iyo waxyaabihii aan isku dardari lahayn halkan waxaan ku haystaa waa rootiga hamburgerka waaye halkanna waxa iigu jirta waa qudaartii aan soo kariyay aan ku soo shubay halkan waxaan ku haystaa mozzarella cheese-kan intana waxa iigu jira cheddar cheese-ka nooca aad rabtid ayaad isticmaali kartaa aniga ayaa saa u soo jarjaray oo jeedaan nooca rabtid ayaa u jaran kartaa wax walba waa ii diyaar hadda waxaan rabaa inaan guda galo sidii aan ugu safi lahaa ama ugu ridi lahaa weelkii aan ovenka la gelin lahaa haduu ilaahay idmo waa kana weelka aan rabo inaan ku dubo waa ii diyaar rootigii hamburgerka waa kana waan kala jaray qaybta hoose qaybta korena hadhow aan rabaa saa inaan ugu daboolo qaybtan hoose ayaan marka hore dhigdhigayaa qayb kastoo kore dhinaca ayaan dhigayaa gees qaybta kore ma dhigay dhulka dhinaca hoose baan dhigayaa dhulka waana soo kala jaray markii hore waa ujeedaan waan soo diyaariyay waa kaasa qaybtaas kore waxay noo qabanaysaa shaqo kale hadhow haduu ilaahay idmo waa isla arkeena inta waxa iigu jira tomato sauce pili malahan basbaas because ilma yar wax ka cunayaan marka ilmahana basbaas kama cuni karaan qofkii aan ilmo u cuneynin markaas waa ku darsan kartaa biliga basbaaska waa kana marka waan ku shushubay saa ujeedaan rootiga korkiisa tomato sauce qaadadan ayaan la marmarinayaa sauce ayaan ugaga dhigayaa marrabi wixii oo dry ah inay ka soo baxaan ovenka mid kasta saasa ujeedid ayaan u marinayaa mid walba haddana waxaan ku shubayaa mozzarella cheese-ka mozzarella hadaa haysatid maasha Allah asaga ayaa ku fiican pizzaha pansiyasha rootiyasha
waxyaabahaas oo dhan uu ku soo baxaa haddaad markaa hayna cheeskii aad gacanta ku haysid ayaa isticmaali kartaa. halkan waxaa igu jira waa qudaartii aan soo kariyey. cheeskii korkiisa ayaan ku shubayaa maadaama rootigii tomato sauce cheeskii ka bacdi qudaarta ayaa ku xigta. qudaarta kama badinayo zaid kamana yareynayo meel dhexaad ayaan ka dhigayaa. mid walbana insha Allah in yaro qiyaasaan saarayaa. waa rooti yar oo simple ah. aniga rootiga idinma tusin videogan sida loo karinayay, waqtiga ayaa igu yaraa ma karin aniga. waan soo gatay hamburgerka rootigiisa laakiin insha Allah haddaad ka heshaan waan soo gelinayaa, wuuna soo socdaa. waan soo gelinayaa rootiga hadda ka hor waan soo geliyay laakiin kaas cod ma lahayn. videoyaashii hore ayuu ka mid ahaa laakiin mid cusub ayaan soo gelinayaa oo sida hamburgerka rootiga loo kariyo. haddana waxaan ku bilaabay oo aan saarsaaraya cheddar cheeskii. soo ujeedaan waa cheeskii kale. cheeskana soo saa u waaweyn ayaan saarayaa saa hore idinku soo sheegayba. any cheese oo markaas ku dhow ayaa isticmaali kartaa cheeskii adi aad jeceshahay. mozzarella cheese yar ayaan korka haddana kasii saarayaa. cheeska badan waxaan u isticmaalayaa guriga ayaa cheeska laga jecel yahay, ciyaalka waa jecel yihiin. anigaas idin la hadlayo aad ayaan uga helaa cheeska. waa kana rootigii qaybtii kore aan idin sheegayaan dhahay hadhow ayaan isticmaalaynaa. qaybtaas kore waxaan saarayaa saa ujeedaanba rootiga qaybtii hoose iyo qudaarta korkooda waan ku daboolayaa. waa daboolkii, dabool ayaan uga dhigayaa. xabadii ugu dambeysaan saarayaa. mid walba markaan saaro saas ayaan u bush garaynayaa si isku qabsato wax yar. halkan waxaa igu jira waa butter aan soo dhalaaliyay. waxaad isticmaali kartaa olive, waxaad isticmaali kartaa subag, anything oo markaas gurigaaga yaala ayaad isticmaali kartaa adoonba isdhibin oo butter raadis iyo waxaas gelin. wixii ku yaalaad isticmaali kartaa. rootiga korkiisaan saas u wada marinayaa. waxaan u marinaya sababtan waxaa waaye inuu dry garoobo oo qalalo ma rabi rootiga. inuu qalalo ma rabi. simsim ayaan hadda korka uga shubayaa ama sisin qof walba siduu u yaqaano. sisintana aad ayay caraf u leedahay iyadana. sisinta waxaan ku shubay 4 xabo bes, labadan kuma daraay. cunugteeda sisinta ma jecla saa darteed ayaan uga reebay. haddana waa diyaar. ovenka ayaan rabaa inaan geliyo. wuxuu ku jirayaa 180 kor iyo hoos 4 ilaa 5 daqiiqo. markuu ka soo baxana suu ku soo baxo waa isla arkaynaa. waan ka soo bixiyay ovenkii. waa kana saxankan ayaan ku gurayaa. maasha Allah guriga caraf, cheeskii, qudaartii, everything, simsimtii wixii dhan waa isqabsatay meesha idin leeyahay. caraf guriga. waa alaab yar oo easy ah karinteeda. haddana waxaan rabaa inaan isla aragno dhexda saa uga jaraayo. waa kaasa ila fiiriya. saas ayaan u jaray. waa kaasa dhexda cheeska maasha Allah. markii aan soo jarjaray oon soo diyaariyay waa kaasa gudihiisii. hoos waa ka kor waa ka guban golden brown qurux badan ayuu ku soo baxay maasha Allah. waa cunto simple ah. xataa waxaa la sameyn karaa sambuuska sometimes intii loo gooyo oo la iska daayo afur ahaanta. kan ayaa booskiisa ku buuxsan kartaa. shaqo badanna ma lahan. yaa booska sambuuska. haddaad ka hesheen akhwaati like saar. haddaad channelka cusub tahay subscribe. daawasho wacan. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.